إلهي هينقل لك كوي مالك الدنيا ذا يا آخرة ذو بنقوليستان إلهي يدب العفو محطة كلا وحيسكاله كنت علماء الدين كوضنك ولبا سيدة وين قعان أقول وسالة وفافتها قارهان برنامجة الدين قاية تلفيش قدر كوباهيو وهي مهم تهي إن لو ضريمو إن وقت ديرادو فربضان مادام يقلينيان مهمة دانا إيا وقت قابرك قابل لكوية تمك هبينيمو أي برنامجة دار السعودان سيدة برنامج دينتي ونورشا وشيخ محمد شيخ عمر الدين الهنتي محوها حليلة قابلة تمك كوية تمك وربع لها كان مركو لايف وكذا ماضي برنامج على سوق بالقبيو laga yaabo inay koobiyo tobanka dheeraad guriga gaaro runtii culimo fara badan ayaa runtii barnaamijyada diiniga ee telefishinka ku xidhan oo sameeyo gudbiya dhammaantood mahadnaqa oo laga mahad celinayaa waxa sidoo kale aan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo mas'uuliyiinta kale wasaaradda oo xagga Tvga marka la eego maamuuskan iyo milgahan qowlka Ilaahay aan u sameeyay waa markii ugu horeysay ee telefishinku muxuu ahaa tafsiirka oo dhamaaday la xusayo waxaana keentay oo muhiim ah markii fikirku naga yimid in markiiba la isla qaato way dhamaantan waxaan dareensano Ilaahayna fahamsiiyay muxuu ahaa Quraanka iyo qiimaha uu leeyahay Quraanku waa waano Quraanku waa naxariis Quraanku waa shifo ama dawo muxuu ahaa sida darteed in mar walba qalbigeena iyo dhigaheena ku xidhno ومهم وحنتي يدنا كلمة كورانية برنامج كتفسير القرآن الكريم كسعودة تلفزيون وكلية سماها محوها باهتن بدها يدبدا وتصالحان شيخ محمود صوفي محمد شيخ نووي ومحوها كتشيديو تلفزيون غير بدها أما هالقيس الله هذا شور والله ليها بدها هالك ساتلايت كانوا شيخ محمد شيخ عمر الدين كمريو waxay taadeen telefisinku riix gamceedka Taycon 5 la yiraahdo ay ku jirto muxuu ahaa oo xambaaro cod ahaan idaacada muxuu ahaa radio Hargeysa oo quraankana sida dadka dibadda jooga ay sida muxuu ahaa ula xiriiraan dhalinyarada kala duwan iyo ragga farsamayaqaanada iyo qaybaha kala duwan ee isku xirnaanta wasaaradda ay ka tahay dhamaantood waxay u leeyihiin arrinta maamuuska ku leeyahay ereyga kaga baxaya ugu dambeeya waxa weeyaan marka la eego shay kasta oo ku ag yaala dhugashada iyo muxuu ahaa sida qotada dheer uga faa'iideysanaysa ama ugu xidhnaanaysa wax badan ayaa muxuu ahaa ka muuqanaya anu marar badan naftayda anigoo la shiraya ama la shawraya waxay leedahay idaacadda quraanka kariimka ee dalka laga hirgeliyay 2013 bishii July ana iska dhaxka qof ahaan isbedel ugu samaysay of ahaan runtii sababta waxa weeyaan marad soo jeedo aan hawada ku jirin ma jirto lixda gobol ee waaweyn iyo gabiileba waa sida darteed waxaan hubaa in barnaamijyada waxbarasho ee idaacadda iyo Tvgu baahiyeen kuwa ugu qiimaha badan ee barnaamijyada diiniga ay yihiin waxa sidoo kale aan hubaa in guud ahaan wasaaraddu doorkii ay ku lahayd bulshada ay u adeegayso ay buuxisay in badan oo kamida oo meel qofku uga baahnaa haday war tahay haday barnaamij tahay haday muxuu ahaayay tahay muxuu ahaa digniin iyo waanaba ay ka helayaan oo laga baahiyo shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliland ee habeen iyo maalin taagan si gaar ah ugu mahadnaqay gaar ahaan inta sida gaarka ah ugu xidhan ee uga soo shaqeysay u daba taagan casharka tafsiirka quraanka kariimka qaybta dibadda la hadashay qaybta gudahaba intii numbertii halkan isu